عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا تيفيغا عالميغا CNN warkana waxa idin la socodsiinaysa anigu Ansal Xuseen Qordheere iyo waliba anigu Yaasir Cabdilaahi Kaahin. qodobada warka aad ku daawo doontaan waxa kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay muuqbaahiyaha caalamiga CNN. ganacsiga habeenkii oo ku soo kordhay magaalada Beledweyne guud ahaan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada Beledweyne. siyaasi kamid ah siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed oo ka hadlay isbedeladii dhawaan ka dhacay deegaanada Koonfur Galbeed iyo waliba xaaladda magaalada Baydhabo. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu waaweyn haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. waatahay kulanti wacan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Soomaaliya ee Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay muuqbaahiyaha caalamiga CNN sidoo faahfaahinta warkan inuu eegayo wariye Samiir Cabdirasaaq Cumar. si uu dhawaan ku soo biiray muuqaalbaahiyaasha ku hadla afka Soomaaliga isla markaana fadhigiisu yahay Kenya ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar kamid ah dadka ku dhaqan Muqdisho iyagoona badankoodu maamulka iyo shaqaalaha CNN ka dalbaday inay la yimaadaan nidaam ka duwan habka ay u shaqeeyaan telefishinada ku hadla afka Soomaaliga. Amiin Haruun Qasaaro waxa uu kamid yahay qorayaasha Soomaaliyeed horena uga mid ahaa baada saxaafadda waxa uu qabaa in xilligan loo baahan yahay in maamulka iyo shaqaalaha telefishinka CNN ay saameyn ku yeeshaan social media maadaama ay tahay halka ugu badan ee sanadadii dambe dadku ay aad ku isticmaalayeen. telefishinkan filaya inuu kamid noqdo doono telefishinada Soomaaliyeed ee tirada badan ee ka jira dalka. marka aad baan u soo dhaweynayaa waana horumar kamid ah horumarada la gaaray oo dhinaca warbaahinta ah. ha noqoto idaacado, ha noqoto telefishin, ha noqoto wargeys, ha noqoto social media. marka aad baan ugu faraxsanahay in aan kamid noqdo dadka maanta fikirkooda ka dhimanaya telefishinkan. sidaa darteed aad baan u soo dhaweynayaa Cable News Agency. waxaan kula dardaarmi lahaa telefishinkan maadaama uu cusub yahay. adduunyada waa horumartay, sidaa darteed waxaan dhihi lahaa telefishinkan waa inuu yeesho social media. telefishin ama warbaahin aan lahayn social media horuma soco karto. marka maanta adduunyada waxay noqotay globalization, waa isku wada xiran tahay. warkii maanta laga sheegay New York maanta waxa ka arkaysaa Muqdisho. marka muhiimadda waxa saaraysaan oo in kula dardaarmaya in aad xooga saartaan inaad yeelataan social media. si la mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay telefishinka CNN oo dhawaan ka mid noqday telefishinada ku hadla afka Soomaaliga. maantii aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho. maantii waxaan rajeynayaa inuu waxyaabo badan laga anfici doono maadaama uu yahay news and television ku soo biiraysa ummadda Soomaaliyeed. maantii fikirkii waxaan is dhihi karaa maantii aad baa loogu baahnaa telefishinkan inuu soo galo hawada. waana soo dhaweynaynaa ka dhalinyaro ahaan telefishinkan. waxaan kula tali lahay macnaha in saxaafaddu ay sii balaariyaan, ay sii horumariyaan barnaamijyada ay bulshada u hayaan, ay sii balaariyaan. horta awalan assalaamu calaykum. magacaygu waa Khadiija Cabdiraxmaan Xasan. telefishinkan oo xalay hawada soo galay horta aad ugu mahadsannahay. CNN aad ugu faraxsanahay. waxaan jeclaan lahaa insha Allah wax badan inuu soo kordhiyo, wax badan kaga duwanaado telefishinada hadda hawada ku jira insha Allah. aadan soo dhaweynaa. waxaan jeclaan lahaa in lagu soo waro barnaamijyo hadda aan la keenin ama telefishinada kale aan soo jeedinin in fikir cusub in hadda ku soo darsadaan insha Allah. labo cusub aan wili hore loo arkin sida aan wixii cusub caalamka jecel wax cusub aan xiiseeyo Soomahan. marka sidoo jeclaan lahaa waan ku faraxsanahay inay imaado CNN
aad iyo aad ugu faraxsanahay. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda ee Muqdisho. ganacsiga ku soo kordhaya magaalada Beledweyne iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada Beledweyne sida uu warkan inoogu diyaariyay wariyaheena Nadaara. laba saac bar ay gaaraan kadibna biibitooyinkan la iska fiiriyay. Horumarkan ganacsi ee laga dareemayo goobaha ganacsiga Beledweyne ayaa xilliyada habeenkii waxa inta badan lagu gaaraa 6 ama 12 habeenimo. Muuqaalka ganacsi ee xilliyada habeenkii ayaa ah mid aad uga duwan ganacsiyada xilliyada kala jira, waxaana aad u badan isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. qaar ka mid ah bulshada ayaan weydiiyay ganacsiga xilliyada habeenkii ah ee qaabka amnigooda uu yahay. haddii aan ka hadlo isku socodka magaalada xilliga habeenkii ah aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. sida maalintiin hadda wax oo kaga duwan yahay gaar ma jiro. ilaa xilli dambe waxa dadka way isku socdaan xaga baabuurta, xaga dadka dadweynaha kale ee lugeynayo, xaga ganacsiyada dhan walba waxa waaye aad bay u wanaagsan yihiin. khaasatan markaan kaagala hadlo meesha hadda aan joogo ee Nuur Xawaad waa meel waxa waaye aad u wanaagsan xaga ganacsiga, xaga waxa waaye isku socodka dhan walba waxa waaye habeenkii aad u wanaagsan tahay. waa ganacsiga habeenkii caadi u shaqeynaya xilli dambe waliba ilaa 4 saac gaara. waxbarashada xilligan ay soo gaartaa marka magaalada Beledweyne habeenkii isku socodkiisa macnaha wax barbaram hadda kama jiraan. waga waa macnaha nabadgeliyo lagu naalan karo oo maasha Allah ka jirto. wuu jira hadda iskuulka hadda oo dadkaan iyagu maana saagtiisa wadan ka soo baxay iskuulka Al-Bukhari habeenkii uu shaqeeyay ilaa 2 saac bar ayuu gaaraa. hadda ardayda waa ka geeska tuuran caadi waxbarashada dhiganayaan wax barbaram kama jiro ilaa 2 saac bar ay gaaraan. kadibna biibitooyinkan la iska firiistaa meelaha ganacsiga waa la sheekaystaa. waxaa ka furaneen maqaayado waaweyn oo caadi la firiisto oo lagu gaari ilaa 4 saac. waxaan joognaa magaalada Beledweyne bartamaheeda gaar ahaan xaafadda Cawtaako. waad u jeedaan magaalada waa magaalo aad u habboon, waa magaalo nabdoon, waa magaalo maxaa la yiraahdaa ka soo kabanaysa dagaaladii sokeeye ka dhacay wadanka. waa magaalo maxaa la yiraahdaa isu socodka gaadiidka iyo dadka iyo dukaamada iyo gawaarida ay isdaba marayaan. magaalada Beledweyne sanadahan dambe inta aan joognay waxaa la yiraahdaa mar ka dambayso way ka soo hagaagaysa xaaladeeda. alxamdulillah ilaah baa mahad iska leh. nabaduna waa wax maxaa la yiraahdaa dadka oo dhan waa deeqo oo dadka oo dhan ay ku manaafacaadayaan haddii ilaahay ku idmahayo. waxaan rajaynaynaa magaaladeenu inay saan ka sii hagaagto oo saan ka sii wanaagsanaato. hadda waxaan joognaa xilli adiga ku siman 2 saac. waxaan ka mid ahay macallimiinta magaalada. haddana waxaan ka imid goobtayda shaqo. waana magaalo maxaa la yiraahdaa aan gees ilaa gees aan ku soo dhaxmaray oo nabad aan ku soo dhaxmaray. waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo in nabadu ay noo sii wanaagsanaa doonto. waxaan leeyahay magaalada Beledweyne waxa waaye waa magaalo aad maxaa la yiraahdaa oo qiimo badan oo qaaya badan, dad xadaari oo ilbaxa oo xadaari ay ku nool yihiin. nabaduna waxay deeqdaa bulshada oo idil. waa magaalo isu socod gaadiidka hadda isu furan yahay. ka gees magaalada waa magaalo maxaa la yiraahdaa ay dadkoo dhan ay si nabadgelyo ay ku dhaxmarayaan. waxaan filayaa isku socodka gaadiidka iyo bulshada weyne cawadiisa ay tahay maasha Allah boqol oo jeedin caawa gawaarigayga waa qaxaysanaya maasha Allah. maasha Allah wallahi isbedel weyn ayaa dhacay maasha Allah. ilaa iyo 7 saac ilaa 8 saac soo jeednaa maasha Allah. isku socodka gaadiidka aad buu wanaagsan yahay maasha Allah. dadka ka maqan gobolka Hiiraan qaasata magaalada Beledweyne waxaan dhihi lahay gobolkiina uu Cabduqaadir Umar Ibrahim, Cabduqaadir Nadaara, CNA Somali TV, Beledweyne. qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay isbedelkii dhawaan ka dhacay Koonfur Galbeed iyo waliba xaaladda magaalada Baydhabo sida uu warkan inoogu soo diray wariye Cabdilaahi Xubi. magaalada Baydhabo kadib markii dabayaaqada sanadkii dhamaaday ee 2018 ay ka dhaceen qalalaaso siyaasadeed kuwaas oo dibadbaxyo rabshado watay. dhinaca kale maamulka cusub ee loo doortay madaxweyne Laftagareen oo ay doorteen 101 mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bulshada waxa ay ku kala aragti duwan yihiin aragtida ah in isbedel cusub uu sameyn karo waxna ka bedeli karo siyaasadii hore. Maxad Cabdicasiis waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Baydhabo wax ku bartay sidoo kalena ka mid ah dhalinyarada ama jiilka cusub ee siyaasadda falanqeysa. maamulka cusub oo uu horkacayo madaxweyne Laftagareen waxa uu ka aaminsan yahay sida tan.
bedelka baydhabo ku dhii weesloogi adduunyadana way unin ogna caalamkan ogi kasteed isbedel oo sharci dore halaalanhayna sasaha anka koyni arlaadan ku dhii kulay wal halaalanhayna ma ana lanka lakoy wiilka shaqeeyo wi waliis la guusin shaqeeyo wi isi warsadana kasteed arlaadan ummata ka nool maamulka ku jari doorashin nis diyaariyay anta dadka wal dooradan macnaha dadka arlaada ku nool macnaha may lahayn wakiil lahayn oo baarlamaankaas dad musharaxiin ee wadankan dhaladan oo ummatu matalaan jiraan lan musharax ee ummata fadaayan diyaaringii kalsoonida dadka ay yalla afduubi sharadaro laga afduubi lan dadka ma fadaan anta la sheeni wali ay bil ogayn kasdeed hatta afkoobining lahayn yaan la sheeni kulay lan kishani ay usin yaal ونطول خير وناق ونقرجها إننا ما الأمور سيقوم بذا مليني أما مطلوب شقة مليني dhinaca kale liibaan ibraahim aamin oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu qabaa shaqada cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftigaran in ay wax badan ka bedeli karto siyaasadii hore ee Shariif Xasan Sheekh Aadan taas oo muddo 4 sano uu ku soo shaqeynayay isbedel markii la ramay waa shacabka may sugahay isbedel may waa madaxweynaha shirayda in la bedelo ma runaan isbedel kama ka bilaawday xukuumadda oo dhan minishibi min meel raayis wasiir in la bedelo isbedel kama ilaha ka bilaawday aasaaska dawladeedna saaso siyaasadda dawladeedna saaso ma macna madaxweynaha hadii usubi meelkooy dadka siyaasadda ka jaran ma oo daleelan ma waa حتى طلع عيدن كول بدله ما اللي بدله كان مشي بيد اللي بدله كان وزير اللي بدله والبا مامل هرتيساي مامل عصب سلجان هذا كورسون ابو يا لسوبيح دولدو سدي مكارا جرني ساسهايتي كل هذا الشعب كما يبان هنوينين اني مامل او اسبدل كوي او عصب اني لا دسه madaxweynahan ma yba ku sugaanay in xukuumad cusub oo taayile u sahdaysan oo isbedel ka metelaas shacabkan koonfur galbeedna metelaas walna qobada ku hadii xukuumadii hor iyo wallahi hada dadka la sheegay dadka sheegaan badan ma waayaan wal warqaba wala jooga magaalada jar wala dhagateegahay dadka oo dhan may ka rajeeyeen madaxweynaha cusub in isbedel oo taayile isbedel la kasoo isla kooy ya ka rajeeyeen halkan aan taaganahay waa afartoodka magaalada Baydhabo oo sanadkan martigelisay qalalaasa siyaasadeeda waxa laga dareemaya magaalada dib u soo kabasho dhanka amniga ah waxa ay sanadka 2019 ka heli doontaa magaalada Baydhabo oo iyadoo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka kooban 3 gobol oo kala Baay, Boqol, Shabeellada Hoose 4 sano ayuu madaxweyne ka ahaan doonaa Cabdicasiis Maxamed Laftigaran oo isagu ah madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo si gaar ah baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed oo la dhaariyay sida warkan inoogu soo diray wariyaheena Cabdiqafaar Cabdirashiid inkastoo ay weli ishaysi ka taagan yihiin kuraasta xubnaha qaar ka mid ah ismada Puntland ay cadeeyeen in la musuqmaasuqay xubnihii ay soo gudbiyeen haddana waa la dhaariyay xubnaha baarlamaanka cusub ee Puntland yeelan doonto 2019 guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka oo xalay fiidkii shaaciyay liiska cusub ee xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka ayaa sheegay in dadaal dheer oo muddo bil ah qaatay kadib ay ku guuleysteen soo gudbinta xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland maanta waxa farxad noo ah haddaan nahay guddiga in maanta xilkii muddada bisha aan gacanta ku haynay oo aad iyo aad noogu culayska badnaa oo masiirka Puntland oo gacanta loo geliyay runtii uusan nala sahlanayn inuu maanta halka nagaga soo gabagaboobo 66 golaha wakiilada Puntland 2019 ay halkan fadhiyaan aad iyo aad bay farxad noogu tahay gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Puntland Maxamed Yuusuf ayaa ku booriyay xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland dhawaana guda gali doona doorashooyinkooda guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha in ay doorashooyinkaas ku saleeyaan kuwa xor iyo xalaal ah mudanayaal waxaa laydinka dhowrahayaa doorasho xor iyo xalaal ah doorasho xor iyo xalaal ah ayaa laydinka sugahayaa waxaa laydinka dhowrahayaa in dastuurka iyo xeerarka kala dalka idinku aad ilaalisaan marka idinku ilaalisaan ayaa cid kale oo dadka mataqaana dalku nool ilaalinaysa oo ay u qumaysaa
arrinta kale ee hadalhaynta badan dhalisay ayaa ah in mudanayaasha cusub ee baarlamaanka aysan ka dhex muuqan doorkii ama qoondadii loogu talagalay haweenka. cabdiqafaar cabdirashiid maxamed, CNA TV, magaalada Gar. wasiirka dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha qaranka Somaliland ayaa waxa uu markii horeysa ka hadlay qaabka loo soo doonanayo golaha guurtida Somaliland. faahfaahinta warkani waxaa magaalada caasimadda Hargeysa ka soo diray wariye Maxamed Andar. wasiirka dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha Somaliland ayaa markii uu horeysay ka warbixiyay hanaanka lagu dooranayo xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland isagoo si cad u sheegay inay soo hindiseen xeer cusub oo ka qayb qaadanaya saami qaybsiga xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland. wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa sidii ay taladeeda iyo taagteeda iyo tabarteedaba ugu kordhin lahayd arrintan maanta halkan ku hay marka saddexaad si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa golaha guurtida oo go'aansaday oo qabtay inay sameeyaan xeer dhaxalgala oo ummadda lagu dhaqo oo golaha uu leeyahay oo aynu kaga bogsano waxay naga guurtida iyo taariikhda ka warramaayo ashada loo rumeeyey sababaa ku kala suuq fara badan ku bilaabay isku timid raggii sameeyey iyo raggii ku soo dhaqmay waxa ka mid fadhiyaan taariikhda ugu badan oo wanaagsan oo qaranka iyo ummadani wax badan oo ku soo qabtay oo wax badan oo haysan laga badbaadiyey ayuu golaha leeyahay oo taariikhda galay dadka intii geeyay oo ay leeyahay oo naxariisto inta noola waa uga maxalin waxqabadka golaha guurtida ma aha inay ku soo koobiyo laakiin waa meel ugu qoran waddanka iyo qaranka meel ugu qoran waa hadda waxa doonaya waxa weeye waa in laga sii wanaajiyo oo sidee loo dhahay waxa waa qadiyay ilaahay uu maartay aadamuhu wax kasta oo wado. hadalkan wasiirka dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha Somaliland ayaa imanaya waqti muran badani ka taagan yahay hanaanka saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Somaliland. maxamed cabdilaahi maxamed Andar, CNA TV, magaalada Hargeysa. madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo saxiixay sharciyo muhiim ah sida uu warkan inoogu diyaariyay wariyaheena Xasan Mukhtaar Waayeelka. yaa qalinka ku duugay hindisa sharciyeed la doonayo in lagu wanaajiyo adeega waaxda qaran ee dhalinyarada NYS-ta oo musuqmaasuq hareeyay. Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale saxiixay 6 sharci oo dheeri ah kadib markii loogu geeyay xarunta madaxtooyada labaad ee ku taala magaala xeebeedka Mombasa. sharciga NYS-ta ayaa dhigaya in waaxdan ay samayn karto hawlo ganacsi. wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha dhalinyarada iyo jinsiyadaha Professor Margaret Kobia ayaa mid taariikhi ah ku tilmaantay talaabada uu madaxweynaha qalinka ugu duugay sharcigan. sidoo kale wasiiradda ayaa carabka ku adkaysay in sharcigan uu xoojini doono nidaamka la xidhiidha iibsiga waxaana jiri doona 12 xubnood oo kormeeri doona hawlaha adeega dhalinyarada si aysan mar labaad u dhicin wax isdabamarin. madaxweynaha ayaa sidoo kale saxiixay hindiso sharciyeed la xiriira saraakiil ku samayni doonta baaritaan dhismooyinka dhulka. mid ka mid ah jilayaasha caanka ah dhanka aflaanta Hindiga ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka Canada. sida uu ku soo waramayo wargeyska The Hindustani Times oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Hindiga ayaa jilaaga caanka ee reer Hindiya Khadar Khan oo muddo ku xanuunsanaya dalka Canada ayaa geeriyooday. Khadar Khan oo haystay diinta Islaamka ayaa meeqaam sare kaga jiray fanka dalka Hindiya gaar ahaan jilista filmaanta Hindiga waxaanu qayb ka qaatay 10 filmaan oo Hindiya. wiil u dhalay jilaagani oo loo magac bixiyay Sarfaafa ayaa warbaahinta dalka Hindiya la wadaagay in uu aabihii ku geeriyooday dalka Canada.
aabahani ayaa waxa uu geeriyooday 31 bishii Diseembar maalinimada galabnimo xilliga wadanka Kanada waxaanu cisbitaal ku jiray 29 saacadood la soo dhaafay waxaana lagu aasi doonaa dalka Kanada sidaas waxa sheegay wiilka uu dhalay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa warkii muuqbaahiyaha CNN intaanan warka ka bixin waxaan dib idin xasuusin doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa shacabka magaalada Muqdisho oo si weyn u soo dhaweeyay muuqbaahiyaha CNN ganacsiga habeenkii oo ku soo kordhay magaalada Beledweyne siyaasi ka hadlay isbedelka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya daawadayaal inta waxaan ku soo gabagabeeyay warkii muuqbaahiyaha CNN warkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Ansal Xuseen Qordheere iyo waliba anigoo ah Yaasir Cabdullaahi Kaahin daawadayaal tan iyo inta ku kulmi doono warkan la mid ah waxaan ku dhaafeynaa nabadgelyo sidaas iyo nabadgelyo